qolkii 2-7 isbitaalka qaariga helo asxaabta sharafta badan ku soo dhawada hoyga qisooyin calamka ee Baxar Nahri Subscribe Nosara channel likek dheh muuqaal nagulawag wixii rayiga kobantiga mahadsanid dhammaantiin. Sanadkii 1995 magaalada qaariga Cairo isbitaal duug ah oo dowladeed ayaa lahaa qol caan noqday qolka 2-7. Dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal badan ayaa diiday inay shaqeeyaan qolkaas. Sababtu ma ahayn cudur balse wax ay arkeen. Maxaa ka dhacayay qolka 2-7? Bukaan kasta oo la dhigo qolkaas wuxuu bilaabi jiray inuu arko wax aan jirin. Wuxuu ku qaylin jiray habeenkii. Qaar waxay sheegi jireen gabar timo dheer leh oo dhiig leh. Qaarna waxay ku dhiman jireen si lama filaan ah. Dhakhaatiirtu markii hore waxay u maleeyeen waali ama cadaadis maskaxeed. Laakiin arrin yaab leh ayaa dhacday. Dhakhtarkii runta ogaaday. Dhakhtar dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Dir Ahmed ayaa go'aansaday inuusan ka baqin. Habeen ayuu qolka la seexday bukaan si uu u kormeero. Saacadda markay ahayd 3-7 habeenimo bukaankii si lama filaan ah ayuu u istaagay isagoo leh. Way taagan tahay. Dabadaada ayaa taagan. Dir Ahmed markuu gadaal u jeestay. Wuxuu arkay hoos madow oo aan lahayn wejiyo cad. Iftiinka qolka ayaa bakhtiyey. Qabow daran ayaa dhacay. Qaylo ayaa ka yeertay derbiyada. Taariikhda qarsoon ee qolka. Baaritaan kadib waxaa la ogaaday in qolka 2-7 hore loogu dilay gabar yar oo bukaanka ka mid ahayd. Dhimashadeeda si sir ah loo qariyey. Meeshaasna lagu sameeyey qalad caafimaad oo dilay. Tan iyo maalintaas qolka waa la xiray. Lambarka 2-7 laguma isticmaalin isbitaalka. Shaqaale badan ayaa is-asilay. Qiso dhab ah miyaa? Qisadan waxaa qoray qorayaal Masri ah. Waxaa laga sameeyey buug iyo filim. Dad badan oo shaqeeyey isbitaalkaas ayaa markhaati ka noqday. Masar waa dal taariikh leh. Laakiin taariikhda qaar weli way nooshahay. Join Baxar Nahri's YouTube channel now.